بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي السؤال هذا مركز يعول إن شاء الله صاحب waxaan jeclaysanaa in la share gareeyo asxaab badan ayaa waxay soo weydiiyeen sideen ku sameynay website-kan oo aan sheegnay in dhammaantiis yahay free kaasi oo ku samaysan domain-ka .ml sida jeedaanba oo sidoo kale security SSL leh security second layer-kiisu connection-kiisu secure yahay markaana loo adeegsan karo sida website caadi ah website-ka waxaan ku dhisnay muddo hadda bila ayaan dhisinay sida jeedaanba dhammaan waan dhamaystirnay jeerarkiisii nidaamkiisii iyo wax kastoo looga baahan karo waa kanaa loogada inkastoo ayna loogada saxdayda website-ka haddana si tijaaba ayaan usoo gelinay shopkii ayuu leeyahay ka tukaamaysan karayso waana electronic commerce Black Friday oo kale hadda waxay ku tusaan dad yoogaasi marka maalinta discount la sameynayo kale Black Friday baa halka kastana dhulka lagu dhigayaa sida jeedo waxa uu qofku sameyn karaa review oo stars ay siin karaa product uu ka helo ama product-yada ugu iibsiga badan ayuu halkan kala socon karaa price buu ku dooran karaa aniga ay tusi baa kartaa wax ka sarreeya 180 ilaa 300 xagana waxa ugu hooseysi marka iyadana saasaad u filter karaysan kartaa raadin karaysaa product ku khaasa waxaad kali karan karaysaa product oo aad dul tegi karaysaa sidoo kale waa kana hadda waxay kala leeyihiin categories so sidoo kale waxay kala leeyihiin size iyo color marka iyadana sidii loo sameeyay insha Allah waan ku baran doonaa website ku dhisan yahay WordPress domain-ka waxaan ka helay Infinity Free waa goob free oo laga helo domains free oo hal sano ah sidoo kale Freenom ayaan iyadana tusi doonaa habka inkastoo ardaydu ay ka soo cawdeen arday badan soo weydiiyeen in uu diidayo isla markaana uu odhanayo not getting so iyagana waan ku baran doonaa marka haddaad doonayso kale inaad wishlist-gaaga ku dari kartaa wishlist waxa weeye goobta aad ku sugi karto product-ga inaad mar un iibsato so iyadana uu ku leeyahay product addict wishlist ku leeyahay product-gii uu sheegaya halkan waxaad ka dooran kartaa size-kii waxaan ka dhignaa large waxaan dooran karnaa blue sida jeedaanba waxaan dooran karnaa tabiski inta baan doonayno saddex xabo ayaan dooran karnaa calaa xabana waa 300 wuxuu dhan isaga isugu keenaya dad kaartigaaga ku darto kaarti aan dhahno halkan ay kusoo geli doonaa kaartigaaga $900 baa soo gashay waa 3 xabo telefoonadaana oo large ah oo blue ah dhammaan markaad view kaartigaaga taado ama checkout ayaad oran kartaa halkan wuxuu kugu sheegayaa inaad 3 xabo hagaagtay earphones-ka oo lagu daray kaartigaaga sidoo kale waxaad sameyn kartaa ku share gareyn kartaa goobahan ku share gareyn kartaa kaara gurigooda gaari tegi kartaa sawirka ayaad soo balaasan kartaa iska fiirin kartaa waxaan uu yahay hadii goor waa aad muhiim tahay in uu qofku iska hubin karo waayo dad badan waxaa jira loo keeno waxyaalo khiyaali ah wadamo fog ka dalbadaan ashyaay marka aan checkout sameyna hadda checkout ayaan leenahay checkout markaan dhahno automatically musu geliya daatadii maadaama hore ugu jirtay checkout markaa procedure ayaan ku bilayso order ayaan leenahay inta kuma xidhnaa wax mastercard laakiin mastercard waan ku xidhi karnaa hadda wuxuu ku xidhan yahay delivery on money oo ah in delivery thank you for your order has been received buu leeyahay pay with cash upon delivery marka lagu keeno shayga inaad lacag saliito kale ayaa ku xidhan marka iyadana inahaas ayaan ku dhaafayaa intaynaan dashboard-ka ayaan u gudbin waxaanu sii wadaynaa arrimihii kale inoo harsanaa may accounts iyo waxaa ku jira kaartigaagii iyo checkout-kaad samaysay sidoo kale phones waxaad si toos u tegi kartaa wixii mobile yaala oo kaari gurigoodii wuxuu inoogu tusin yahay xaggaa sare waad u jeedaan sidoo kale waxaad dooran kartaa headphones-kii contact page-ka ayaad aadi kartaa oo si toos ula xiriiri kartaa bogga adigoo lambarkiina ka weli kara contact support-kana la xiriiri kara halkan waxaad gelin kartaa magacaagii email-kaagii subject-iga waxaad ka hadlaysid iyo message-kaaga la soo xiriidho my account waxaa kugu jira dashboard-kii order-kii meelaha download karastay addresses-kii contact details-kii wishlist-kii iyo inaad user-ka ka baxdo dhammaantiis insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan sidoo kale halkan waxaa ku jira homeka blog oo ah website-ka aad kala socon karta information u dambeeyey
information kasta halkan soo gelin karaa si fudud adigoo odhan kara continue reader markaana aan akhriyi kara dhammaan comment baad ku dari kartaa waxaad raadin kartaa sidoo kale mawduucyo waxalaale waxaad doontaa kaga hadli kartaa waa kan hadda wuxuu leeyahay top post categories kusoo qabanaya comment ayaad ku reeban kartaa waa tahay contact page-ka isaga waynu soo tilmaanay about us oo ah bogga waxyaalaha bogga ku saabsan aan iyadana istifaadi doono insha allahu tacaala waa kan imaamka ku sheegayaa wixii ku saabsanaa website-ka iyo waxyaalihii taskiyada ay qabteen iyo shaqooyinkooda ugu waaweynaa so dashboardka ayaan tegi doonaa hadda teamka aan isticmaalay waxaa leeyahay platform so waa lacag had iyo goor laakiin iyadoo waxaad helaysaa iska dad intay iibsadeen ay dib soo upload gareeyeen descriptionka insha allah ayaan soo dhigan isku dayi doonaa midaan soo download gareeya ayaan hadda u isticmaalay marka waxaad samayn kartaa oo kale waad iibsan kartaa hadda dashboardkeena ayaan nimi pluginska ayaan tegi doonaa pluginska isticmaalaysa aad u aragto website-ka helsigiisa guriga aad aragtaa waa kuwan pluginska isticmaalaha kamid ah contact form 7 oo maaragtay leeyahay formkii contactiga extension oo mail job ayaad kusoo dari kartaa waxaa weeyaan emailkii oo automatic isu diraya dhammaan dadka website-ka wax ka gatay iyo dadka maaragtay comment kasoo dhigtay waxaad u diri kartaa email aad ku samaysay adu gacantaada kaasi oo xayeysiin ama product ama waxyaalaha aad doonayso kuu qabanaya fontiga waxaan isticmaalay Google Fonts typography dhammaan yadaa ku faraynaysaa oo fara kala duwan kugu samaynaysa readingska paragraphska iyo lineska website-kaaga sidoo kale chatbot iyadana waxaa loo isticmaalaa security-ga iyo performance-ga iyo marketing tool weeye isaguna sidoo kale waxaan isticmaalay mailchimp oo ah isaguna application free ah oo aanu isticmaali doono emailka inaan emailka ku xidhanno electronic commercial waxaan isticmaalay WooCommerce oo ah source-ga open source-ga ugu caansan ninka loo isticmaali karo tanna waa sidebar oo sidebariska harraha yaxda ku hagaagsanaysaa bible inuu qofku payment ku bixin karo ayay tana ka caawinaysaa plugins haddaan kasoo gudbo themeska aan tuso themeska hadii goor waa iska free ku jira originalka hore ee wordpresska marka adiga ayaa la rabaa inaad themekaaga ku xisato customization ku samayso ama inaad theme caalamiga aad la soo degto kuwaasina customizationkooda iyo qurxintooda way ka badan yihiin iyadana waa si toos ayaad dashboardka ugala socon karaysaa sidoo kale credentialka waxaad siin kartaa users kala duwan iyo different users iyagana waad tegi doonaa insha allahu tacaala team editorki waa kan wada ujeedaan teamkaaga editorka ku samayn kartaa sidoo kale iyadana waxaa aada u muhiim u ah wada ujeedaan product hadda laba product ayaa nagu jira duplicate ayaad ku samayn kartaa productkaagii adigoo magacyo kala duwan ku bixinaya adigoo soo gelinaya mid hadda ku jira ayaad garan kartaa ka bedeli kartaa draftiga markuu joogo productkaas waxa weeye kama soo muuqanayo goobtii loogu talagalay oo draftiga ayaa lagu sixin karaa productkaaga waad ujeedaan productkan waxaan u bixinaynaa laptopkan waxaan u baahanay inaan description ka qorno descriptionku waa muhiim waxaan leenahay so check out now ayaan leenahay hadda ayaan geesti laptopska soo baxayay waxyaalo xayeysiin ayaad ku dari kartaa regular price-ku aad u muhiim yahay inaad halkan aad price ka geliso regular price-keeda 600 oo kala gelino aan 550 ayaan ka dhigaynaa taxi walba ma tax ku leeyahay standard product miyaa mise reduce shay weeye inuu textka saad ujeedaan halkan hadda waxaan kasoo qaadan doonaa sawir laptop ayaan soo qaadanaynaa ujeedaan product image kan ayaa kasoo baahanaa marka gallery qofka sida daawo kara ayaad soo dari kartaa description short description kana waxa weeye waa
waad ujeedaan description baad ka raacin kartaa waxaad doonta ku dari kartaa dowladda waa mid dowladda ka shaqeynaysa dowladda xilligu dhacayo inta xagga laga dhigto mid plan for unlimited hada doonayso qof intuu doono dowlad gareyn karo iska diinaysaa tan oo kale waxaad ku xidhi kartaa xilliga waxaad ku xidhi kartaa saddex shan xabo marka laga dowlad gareyn expire noqdo taxkii waa ka hadalay waxyaalo kale ku soo dari kartaa oo qofkin kartaa tan lafteeda waxaad ka dhigi kartaa fartiis font size ku dhigaysaa waad ujeedaan waxaad ku dari kartaa colors kala duwan waana adiga ayaana edit garaysanaya waxaa ku tusanaya rabtaa ka dhigaysaa formatka ka kala garan kartaa background u samayn kartaa background yaro taas ku noqonaya waxaa adiga ayaa laga rabaa inaad soo furtaan ishu qabo kartaa ku saarto hadda waan ka qaadanaa background kala geeday anyway adiga ayaa laga rabaa waxaa inaad habka rabto garaysato hadda waxaan isku daynaa inaan publish garayno product ayaan publish garaynaynaa hore inuu live ka noqonayaa waxyaalo intaa kasii badan oo ku dari kartaa adigu waxaad doonaysa kusii dari kartaa waxyaalaha laga rabo meeshaan rabo inaan soo halkaan qofku noo kara subscriber oo qofkii doonaa soo subscribe garan kara shop manager buu noqon karaa wuxuu noqon karaa contributor oo qaybiya wuxuu noqon karaa author noqon karaa editor oo qoraalada iyo tafsiir edit gareeya adminkii guud website ayuu noqon karaa sidoo kale adiga ayaa laga rabaa waxyaalaha jeceshahay cidda doonaysa kusoo darto website-kaaga YITH waa wishlist weeye hadda ayaan tusay wishlist waxa weeyaan inaad product ku sii darto waxyaalaha aad bisha dambe rabto inaad iibsato oo kale marka aad si aad u xasuusato so site URL-kii IP address-kiisii dhammaan waxyaalihii way ujeedaan versionkan isticmaalay PHP-ga TLS-ka versionka dhammaan halkan aad ujeedaan waxyaalahan isticmaalay anyway hadda waxaan gudageli doonaa sidii aan domainka aan uga hawlgeli lahayn iyo meelihii laga helayay insha allah website-kan inaha ayaan kusoo koobayaa wixii su-aala iyo wixii recommendation aad ku darayso insha allah waa welcome intaa wixii ka dambeeya waxaan isku dayi doonaa inaan aadno qaybta iyo domainka so inahaana dhowaan sharaxnay qaybtiisii waxaan tegaynaa insha allah iyadana waad ujeedaan dhammaantiis waxaan tegaynaa qaybta oo infinity free oo kaga jiro iyadana waa muhiim inaan tuso client area-giisa infinity free ayaa hadda waa control panelka marka file uploadkiisi waa kan waa halkan waad ujeedaan last login isaga ay xisaabsanaya hg documents-kaas oo dhigaysaan faylashaada meel kale ma dhigaysid faylashaada oo dhan halkaa ku jiran ayaa muhiim hadii faylashaada halkaa ku jirin website-ku ku shaqeyn waayaa laga yaabaa waxaan manayaa asxaabta local host isticmaala way fahamsan yihiin waa kan hadda waxaynu gelaynaa cpanelkeedu hadiyo goor waa mid qolyaha freega bixiyo o dhan waad ujeedaan advertisement waxyaalaha ay ku bixinayaan halkana waa tusi doonaa FTP accounts waa wokina waan isticmaalay subdomain waa unlimited buu leeyahay waxyaalahaas oo dhan waa unlimited halkan disk space usage-ka aad isticmaashay kuu sheegayaa diski kootaha aad haysataa waa unlimited disk freegu waa unlimited waxyaalahaas oo dhan waa muhiim bandwidth waa unlimited bandwidth userka aan isticmaalana waa 180 MB kafuu hadhayna waa unlimited marka waxyaalaha unlimitedka oo dhan aad ay muhiim yihiin domainkii FTP-gii dhammaantood waad ujeedaan so halkan cpanelku website-yadu kala duwan yihiin mostly kuwan waa isku mid marka waxaad ka isticmaali kartaa waxyaalo badan accountigii update contactigii online file managerkii backup-kii waad ka samayn kartaa ayaa halka isku sheegaya PHP-geedii admin baa halka ka geli kartaa databases-ka waxaan ka geli kartaa waad ujeedaan
redirect website kala ku xiriirin kartaa website ka oo marka website kala booqday kan soo galo kale ama kan ayaad ku xiriirin kartaa website kale email account-kii forwarder-kii oo ah email-ka in uu istiro webmail-kii oo kale ID broker oo kale inaad waddanka mamnuuci karto kale SSL-kii oo security secret layer oo ah security-ga ilaha ka inooga muuqdo oo kale soft close oo ah application soft close wuxuu ka caawinayaa application waxa weeye database-keeni ayaa kala xiriiri kartaa aan iskaga soo noqonayada soft close waxaa ku jira dhammaan application-nada aad kaga shubi karto website-ka jumlihii baa ku jira wordpress baa ku jira malaayiin soft open source ayaa ku jira oo aad kaga shubi karto ka doonayso ayaad install taabanaysaa halka ayaad kasii wadaysaa webkiisa dhammaan waxaan o dhan waa ku xiriirsan kartaa website-kaaga kuwa labadana ayaan ugu caansan hadii goor wordpress-ka iyo jumlaha sidoo kale waad sii dhexgeli kartaa iyaga laftigooda waad baari kartaa website-ka hadda ku jira qudhiisa halkan ayaad ka ogaanaysaa waxyaala badan oo muhiimad leh halkan ku jira file management-igi oo kale isagana inaha ayaan kaga qaybta ugu muhiimsan waxaa muhiima inaad haysato emailku aad buu muhiim yahay haddaadan emailka aadan email passwordkiisa hayso aadan garanaynin oo kuwa transfer verification-nada iyo waxyaalaha aad samaynayso oo dhan qodobka ugu horeeya samayna waxa weeye inaan email samayno example domain search domain qaadana domain search afar boqol iyo konton siiyey manaka qaylabad moosiri kuranaya username leeyahay waxyaalaha muhiimka search domain oo la baqaayo oo kale qaadan kartaa search waa diidan yahay search domain 2 هذا وجه search domain 1 iska banaan marka password-gan aad muhiim kugu yahay inaad number-kaaga ku shaqeeyo email-kaaga email-kaagana waad ku samaysan karaysaa laakiin anu hadda kan tijaabada ayaa ku samayn doonaa waad ujeedaan email-kan tijaabada ayaa insha allah ku samaynaya anigu isaga ayaana wax walba inoogu soo dhigi doonaan aan furnaanayaa okay email-ku waa inoogu furan yahay haddana waxaan booqanaynaa infinity free markaan booqano email-ka kan inooga soo kacayaa infinity free ayaan booqanaynaa sign up now ayaan doonaa sign up now iyo infinity free link sign up waa inay ku jiraan marka password-kaaga waa inuu noqdaa mid la aqbali karo isagana haddaad password fulkiisa waxaa laga yaabaa inay ku dhacaan maanaan aqbalin email-kaaga ayaad refresh garin doontaa email-kaaga ayayna kore kasoo geli doontaa fariintu infinity free verification email oo aad ujeedaan waxaa shaqadaadana si degdeg ah u qabanin haddaad markiiba markaa xaggan kasoo dirto isla markiiba xaggan ka taabato waxaa laga yaabaa in lagu dhaho waa wax website-ka khalkhal gelinayaa ay ku moodaan isla markaana ay cilad ku geliyaan marka hadda waxaan ku jirnaa email-keeni search domain 12 account cusub ayaan ka aasaasinaa okay custom domain iyo subdomain inta waa safaraysaa account-keena hadda waa inoo diyaarsan yahay email-ka waa inoo diyaarsan yahay marka waxaan isku xidhnaa labo website ayaan isku xidhnaa website-ka infinity free iyo website-ka freedom marka freedom wuxuu kaga fiican yahay kan wuxuu ku siinayaa specific email hadda halkan wuxuu ku siinayaa sal jeedaan intaana domain ku siinayaa marka domain halkan waxaan gelina hadda some aan leeyahay some go Somali go ayaan gelina example domain ayaan leenahay domain 6 leeyahay waa kan waad ujeedaan website-ki ay ku leeyahay account level somgo bog hadda waa inoo create gareysmay aan infinity free aan freenom.com freenom.com ayay isagana description ku dhigi doonaa freenom waa website-kan
waa website ku yara adkeeya dadka laakiin waxaan kusi doonaa insha allah inuu ku gudubnay hadda website-keenan waa open marka freedom channel kale waxaan marka sungo.nl so sungo.nl waa ujeedaan waa free some calls available. Let me select share organization. Select the same share organization. One domain in fact, one domain in fact, I can use that. My thought is also that I can 3 means you know, and so over the 3 we talk about 1 year with the blow like I am. 12 kan waa free mar walba iyagoo lagu siinaya dadka 1 year ka gadato KTV ayaan leenahay 12 month ayaan furanay KTV ayaan leenahay waad ujeedaan wax saynna maanan samayn weli waad ujeedaan profile emailka ayaan gelinayna marka emailkaas aan gelino emailkina ayaan halkaan gelinay soo waxaan samaynayna profile email so email verification waxaa inoo gudbay emailkeena ayaan marna aan ku sameynaa refresh website oo laba ku sareeyo konteegani horena waa inoo create gareeyay marka freedom ayaan ku dhufanaa waxaan ayaan kusoo apply karaynaa before you get your order please confirm your email address emailkaas oo noo confirm gare orderkaaga marka datadana orderkaas ku dhamaan so uma baahan inaad user iyo ka samaysato gobolka dooraa layna yiri waqooyigan dooranayna shabeellooyin so waqooyiga dadka kalo amaana password ayaan hadda u samaysanaa confirmation sana let me say someone who knows هذا agreement ولا صافي إنه وحما كمان هذا agreement ولا صافي وحوي لوجي كذي so you must هذا domain واقع ناي أنا يكون سنة domain كيلو كذي لازم يكون بلوج activity هذه كلها قاعدة طالبين توسع على هذا كذا تسع أنت كبعدنا توسع يروح تسوي استعمال كذا إيميل كذا domain كذا يتوسع استعمال كذا so domains ahora hacen uso del canal de categoría password WhatsApp email والله هذا اللي وكنا sungo wixii hada way noo samaysmeen emailkeena magaceena gelinay waa kan emailkeena hadda kusoo galay kuwa kaloo fara badan halkan ayaan hadda aan ka raadin karnaa sungo xilliga la register gareeyey xilliga uu dhacayo active way free way manage domains waxaa ku xiri kartaa DNS ka ku xiri kartaa name server ayaa ku xiri kartaa name server ka doonaysa custom name server ka kuwa default ga ee website ka isticmaali kartaa meesha doonta ka soo geli kartaa sungo weli active maaha laakiin markii u horeysay ay active soo noqoto toos ay u booqataa waxaan jeedaan email si aan baqay doona isaga geli doona kan isaga ayaan la xiriirin doonaa oo hadda meesha hadda ayna company waxaan keli doonaa waxaan ka dhigi doonaa custom domain ayaan ka dhigi doonaa let me say now
custom domain ayaan ka dhigi doonaa intaadan isticmaalin inaad name server ka geliso muhiim ah samgal email domain access website for samgal waxaa lagu soo diri doonaa waana markaa name server-kaaga hadda isaga ayaa ku sheegaya intaadan wax kala samayn name server-kaaga waa inaad ku point garaysaa ns1 iyo ns2 waa inaad ku post garaysaa name server-kaaga taas ayaa ugu muhiimsan manage so manage waa kana name server halkan ayaan hagaajinaa so kinka waa hagaajinaa ilo waa hagaajinaa marka website-koodana waad ka heli kartaa labadan ayaad ku helaysaa name server-ka meelo badan ayaad ka helaysaa waxaad heli kartaa meel kasta google-ka qolo walbana name server-ka leedahay marka kulli waa isku wada mid infinity free inta mobile waad bedeli kartaa meesheeda hadda aan kasoo bedelanay kuwa badan oo ka jira marka different name servers baad qaadan kartaa change name servers marka loo asingareeyana waqti bay qaadanaysaa marka berri oo kale ayaad gelaysaa dhag horey ama galabtii oo kale markaad suuqa samayso marka waa adigu ilaa 4 saac iyo wax ka yar insha Allah taala marka intaas inoo soo gasho ayaan soo laabanaa insha Allah. Assalaamu calaykum.